bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka duurnimada shabeelle aysa waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada oo laga helayo dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo al-shabaab oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka gado ciidan ka wadarsan dowladda soomaaliya oo ku dagaalamay xaafad ka tirsan muqdisho maamulka gobolka hiiraan oo sheegay inay sii kordheen fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameynayo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka midnimada beelaha hawiye oo ku baaqay in si degdega loogu gurmado dadkii ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle ee deegaano ka tirsan gobolka hiiraan shir looga hadlayo arrimaha cadaaladda oo maanta ka furmay magaalada muqdisho qaramada midoobe oo si kulul u cambaaraysay qaraxii shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug xukuumadda soomaaliya oo sheegtay inay waddo qorshe lagu daabacayo shilinka soomaaliga ciidan ka tirsan kuwa puntland oo howlgal tiradada lagu qabtay ka sameeyey waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dowladda soomaaliya oo wafda wasiiraha u dirtay dalka burundi si ay kaga qayb galaan kulanka galabta magaalada bujumbura ee dalka burundi ku dhex maraya soomaaliya iyo tanzaniya wararka dibadda ee duurnimadan shabeelle aysa waxaa ka mid ah maraykanka oo ku baaqay in sacuudiga uu soo afjaro cunaqabataynta uu saaray dalka qatar iyo weerar dad ay ku dhinteen oo ka dhacay dalka maali waa duhurnimo axada taariikhdu ay ku beegan tahay 29 bisha afraad ee abriil sanadka 2018 warkaasi oo dhan duhurnimadan waxay noo haysaa farxiyo siyaad maxamuud aad baad u mahadsan tahay nuurudiin xasan ibraahim nuurudiin shardi bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xarakada shabaab oo ka dhacay gobolka gado ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa ku dagaalamay nawaaxiga degmada buurdhuube ee gobolka gado dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya roondo ay ka sameynayeen duleedka buurdhuubo dagaal xoogan ay kala hor yimaadeen dagaalyahano ka tirsan xarakada shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen in 2 dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab ay ku dileen dagaalkaasi ka dhacay duleedka buurdhuubo iyagoona intaa ku daray in hal askari uu kaga dhintay dagaalkaasi waxayna intaasi raaciyeen inay jiraan dhaawacyo soo kala gaaray labada dhinac maalmihii ugu dambeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka sameynayeen deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka taasi oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka deegaanadaasi oo ay qaybo ka mida kaga sugan yihiin dagaalyahanada xarakada al-shabaab ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dagaalamay magaalada muqdisho guuleed cumar xasan ayaa warkanna eegaya sidaan ku helayno wararka ka imaanaya qaybo ka mid ah degmada daynile ee gobolka banaadir ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda oo xiisadooda beryihii ugu dambeeyey ka taagneed agagaarka xirada zaman ee magaalada muqdisho ayaa lagu waramayaa maanta iska horimaad kooban in ciidankaas uu halkaasi ku dhex maray dagaalka kooban ee ciidankaas dhex maray ayaa ka dhashay khasaaro dhimasho oo la sheegayay in ku dhowaad 5 ruux ay goobta ay ku dhimatay sida wararku qaar ay sheegayaan xasan maxamed nuur oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo la hadlay idaacadda shabeelle stuudiyaha muqdisho ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in xiisadu ay dib u soo cusboonaatay kadib markii lagu kala tegay wadahadalo dhowaanahanba la doonayay in xal looga gaaro xiisadaha ka taagan agagaarka hanta dheer ee magaalada muqdisho saaka 5 qofood inay dhimatay oo dagaal yar oo meesha ka qofka dhimata dawladuna sooma tixraacdo dadka laga dilayna iimaydaas kama roon iyo way habeenka daas yaxato xabadaha ma jiifa kartid haday maalintaas sidoo kale dhibaatada waa iska joogto hadda maanta 5 qofood dhimata la leeyahay maalin ka horeysa 3 dhimatay maalin ka soo horeysa 5 dhimatay maalin kada habeen dagaal dhaco ayaan dhaweeday 20 dhimatay dadka deegaanka iyo siyaasiyiin iyo ninka la yiraahdo dad ay isku dayeen khiyaar deegaanka ah in dibkan soo noqday xal laga gaaro waa la fadhiistay waa lagu kala tagay haddana waa la fadhiistay gobol saas ahaa jiray qaybta ugu dambeysay saaka lagu kala tagay ma garad waxaan codsaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha inay arrintaas wax ka qabtaan xiisadaasi u dhaxaysa ciidamo ka wada tirsan dowladda oo salka ku haysta iska qabsi dhuleeda ayaa maalmihii ugu dambeysay ka taagneed agagaarka xirada zaman waxayna saameynta ugu weyn xiisadaas ee ku yeelatay qaar ka mid ah dadka deegaanka nuur yarow cali iyo weliba sheekh doon nuur wadheere waxay ka mid yihiin odayaasha da-da ah ee degan agagaarka xirada zaman waxa ayna cabasho ka muujinayaan xiisadahaas dabajooga ay kusoo laalaabtay agagaarka xiradaas waxayna baaq u direen mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda oo ku aadan in wax laga qabto dhibaatada halkaasi ka taagan oo ugu horeyso dhulboob laga wado halkaas
walba san meeshaas ku leeyahay waxa waaye burcaga dhex jirtay mooriyaan ay soo dhigteen niman oo maaragtay dama isku sheegahay waxa waaye laba xero ay ka socdaan ilmaha marka waxa waaye aniga dhulkaas wax badanaan deganay 7 jiraan ma aha haye waxa waaye nin oo mooriyaan oo meel iska fadhiyahay dawladana ijilisha ani waxa waaye laanta koortama waxay ka bilowdo waaye CC ka soo gudbay maalmo wala hadalku waa fashilmay in la isdili taaganta markaan ku dhowday 92 sano jira xamaraan ku dhashay aniga xamar talyaanigiyaan joogay ingiriiskiyaan joogay soomaaliyaan joogay waddanka weliyaan joogaa walaalayaalo dawladda waxaan ka rabaa dawladda caadi hadee dawladda caadi la ahaa maxaa la yidhahdaa adduun waa laga tegaya aakhira la aadaya malaysaa ama falaala sameeyo walaalayaalo waxaad yeelaysiin rag hallees ka dhigo nimanka ciidanka oo dadka boobaayaan hanagala qabto taasaa qabaa. si kastaba arrintu aan noqotay maadaama uu burburay dadaaladii wadahadallada ah ee la doonayay in xal looga gaaro xiisadahaas ayaa waxaa iminka la saadaalin karin halka ay ku dambeyn doonto xiisadaas u dhexaysa ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ee salka ku hayso arrimo iska qabsi dhuleed ee ka taagan xirada Zaban degmada Daynile ee gobolka Banaadir. odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye ayaa ku baaqay in si degdeg ah loogu gurmado dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle. Nuruddin Xasan Ibraahim Shardi ayaa warkan faahfaahinaya. gudoomiyaha odayaasha dhaqanka midnimada beelaha Hawiye nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo la hadlay idaacadda Shabeelle ee Muqdisho ayaa ka hadlay fatahaada ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan taasi oo inta badan xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan dadkii ku dhaqnaa ay ka barakaceen isla markaana u barakaceen duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa cod dheer ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in si degdeg ah loogu gurmado dadkii ay saameeyeen fatahaada ku dhufatay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan isagoona sheegay in dawlad kaliya aan lagu haleyn dadkaasi ay saameeyeen fatahaada webiga Shabeelle ee intooda badan dadka ay kaga barakaceen xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. waxaan ugu baaqay ganacsatada iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeed in si degdeg ah lagu gurmado dadkaasi saameynta xoogan ay ku yeesheen fatahaada webiga Shabeelle. u tacsiyeeyo masiibada ka dhacday gobolka Hiiraan qaasatan magaalada Beledweyne ee ka soo gaartay fatahaada webiga. marka adeer waxaan leeyahay dadka meeshaas mushkiladu ku qabsatay hadda waxay dhantana Allah u naxariisto waxa dhib qaba Allah shaafiyo hantida ku burburtay oo faraha badanna ilaahay maaragtay meel kale ha ka siiyo. marka mushkiladaas aan rabaa inaan ka tacsiyeeyo. intaas kadib waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan ugu baaqo inay maaragtay mushkiladaas loo gurmado oo aan loo aabay yeelin oo dawlad kaliya lagu haleyn oo cid la isleeyahay walaxay la haysataa aan lagu haleyn. dadka Soomaaliyeed ilaahay wax siiyay waa inay mas'uuliyadaas ay qaadaan oo gurmad aan kala harnayn la sameeyo. dadkaas haddii Soomaaliyeed oo walaalaheena oo mushkiladu ku habsatay oo masiibadaas dabiiciga ay meeshaas ku heshay oo maantay meel walba dhibka iyo culaysku ay ka haystaan waxaan rabnaa in maaragtay loo gurmado si aan kala har lahayn. ummadda Soomaaliyeed waxa gudaha jooga iyo waxa dibadda jooga intaba intaasaan rabnaa inaan maaragtay aan ka hadalno. dawladda Soomaaliyeedna haddii waxay ila tahay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa ku fatahay webiga Shabeelle taasi oo sababtay in dadkii ku dhaqnaa xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne iyo sidoo kale deegaano u dhow magaalada Beledweyne ay ka barakacaan magaaladaasi Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii fatahaad xoogan uu sameeyay dhawaan webiga Shabeelle iyadoo dadka qaarkood ay la soo dirseen dhibaatooyin xoogan kuwaas oo ku sugan duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. dhinaca kalena maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay sii kordhayaan fatahaadaha uu sameynayo webiga Shabeelle. mar kale Guuleed Cumar Xasan ayaa eegaya. Sheekh Xuseen Ismaan Cali gudoomiyaha dhanka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan oo la hadlayay idaacadda Shabeelle stuudiyaha Muqdisho ayaa waxa uu ka dhawaajiyay inay marba marka ka dambeysay ay sii saacideyso fatahaada uu sameynayo webiga Shabeelle isla marhaantan uu ka geysanayo qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne iyo hareeraheeda. waxa uu tilmaamay gudoomiyaha dhanka arrimaha bulshada goobo aan looga barin in webiga markuu fataho ay gaaraan biyaha in haatan webigu uu gaarayo. tusaale waxa uu soo qaatay goobo kolkii hore dadku ay ku barakici jireen oo uu sheegay in iminka webiga biyihiisu ay gaareen.
isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheekh xuseen cismaan cali dhanka kala tilmaamay in xaaladda ugu adag haatan ka taagan gobolka aysan ahayn in dadkaas gurmad raashiin waxyaabo loo fidiyo laakiin ay tahay in lasoo badbaadiyo shacab oo uu sheegay inay ku go-doonsan yihiin qaybo ka mid ah duleedka magaalada beledweyne iyo gudaha magaaladaasi waxa uu tilmaamay inay adag tahay dadkaas in loo gurmado waxa uuna intaasi ku daray in arrinkaas maamulka gobolka hiiraan iyo hirshabeelle ay ka weyn tahay dowladduna loo baahan yahay in dadkaas qorshooyin lagu badbaadin lahaa ay la timaado ugu dambeyn sheekh xuseen cismaan cali ayaa baaq u diray mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha caalamiga taa oo ku aadan in si deg deg ah loogu soo gurmado shacabka soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gobolka hiiraan. habeen kasta maalin kasta oo maalinta ka dambayso waxaad arkaynaa biyihii meeshay dugay inay kasii saramarayaan. hadda xalay waxaana soo gaartay oo aan aragnay oo dadkii ayna soo gaarsiiyeen oo anagana aan ka war helnay meel la yidhaahdo xaafadda buunduweyn, meel buula yacquub yidhahdo xaafadda buunduweyn ka tirsan xalay oo meeshaasoo dad yacni aan weli cararin oon bixin oo isdhahayay meel taagaa saarantiin oo aanan ugu aqoonin meelaha biyaha galana aan ugu aqoonin ayaa xalay biyihii soo galeen oo ayagana hadda meesheedan ay kasii cararin meel kaloo haddan ugu sii dhawa ay sii aadeen. marka haddee xaaladda beledweyne marka xaalad laga sheekey kara ma aha. hadda haddaad badaxmarto meeshii shalay ay joogeen dilibka kuu joogeen waa kasii saramaraysa waa dareemaysaa. hadda aan kula hadlayo waxaan joogaa hotel madiina hortiisa aan joogaa biyaha ii dhow dadkiibaa ii muuqdo marka waxa waaye waa habta haweenka ma socon karaan hadda waa biyaha aad u xoog badan biyaha aad u xoog badan waxaa isleeyahay biyo xoogo waa hoosay usii soconayaan laakiin hoos mu socdo koran kusii socdaan marka waxa waaye dadaa go-doonsan in la ogaada rabaa dadaa go-doonsan dadkaas go-doonka ku jiro waa dad reer beledweyne waa dad reer hiiraan ah waa dad soomaaliyeed marka dadka go-doonka laga soo saaraa muhiim dowladdan dhaxana waxaa looga fadhiyaa ama doon ha keento ama si kasta ha yeesho yani annaga waa naga tanweyntaha runtii arrin aan ka bixi karna ma aha. marka dadkaas go-doonsan oo halista ku jiro in laga soo saaraa ayaa muhiim ah. waxyaabahan kale dadkii baxay waaba baxay kii baxay dadkiisoo ku dhex jira shacabkiisoo ku dhex jira kii ceel jaale aadi kii shiirka neexa uqaxay kii yani meeshan wurida uqaxay kii kaloo meel cararay oo meel degi waaba meelow degi laakiin kan go-doonka ku jira muhiim ah daarkadkeena marka hadda meeshaas. si kastaba arrintu ha noqotay dowladda federaalk soomaaliya ayaa shalay guddi ka kooban 12 xubnood waxa ay u xil saartay dhibaatooyinka fatahadaha ay geysanayaan webiyada jubba iyo shabeelle gaar ahaan dhibaatada adag ee ka taagan gobolka hiiraan waxaana iminka laga dhuur sugayaa tallaabooyinka loogu gurman doono shacabka soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gobolka hiiraan ay qaadi doonaan mas-uuliyiinta ugu saraysa dowladda iyo hay-adaha caalamiga. qaramada midoobey ayaa cambaareysay qarixii shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. xasan kaafi xuseen axmed ayaa warkan faahfaahinaya. howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa si kulul u cambaariyey qaraxii shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambasador michael kitin ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid la doonayay in lagu carqaladeeyo nabadeynta iyo dib u heshiisiinta ka bilaabatay magaalada gaalkacyo. master kitin ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta iyo shacabka reer gaalkacyood inay isku gacan siiyaan ka shaqaynta nabadda iyo dib u heshiisiinta islamarkaana aysan ku niyadjabin weerarada caynkana oo uu sheegay in la doonayo in lagu baabi'iyo rajadooda mustaqbalka. sidoo kale waxa uu tacsi u diray qaraabadii iyo eheladii ay dadkoodu ku geeriyoodeen qaraxaasi isagoo kuwii ku dhaawacmayna caafimaad u rajeeyey. shalay ayay ahayd markii qarax ismiidaamin ah ayuu ka dhacay goob maqaayada oo ku taalla magaalada gaalkacyo ee xarunta mudug halkaa uu ku geeriyooday taliyihii ciidamada isku dhafka ahaa ee magaaladaasi iyo askar kale iyadoona ay xusud mudan tahay in xarakada al-shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda qaraxaasi. shir looga hadlayo arrimaha cadaaladda ayaa maanta waxa uu ka furmay caasimadda dalka ee muqdisho iyadoo dowladda federaalk soomaaliyana wafdi wasiiraha u dirtay dalka burundi gaar ahaan magaalada bujumbura ee dalkaasi oo kulan kubadda cagta uu ku dhex mari doono xulalka soomaaliya iyo dalkaasi. haddaba waraysi arrintaasi ku saabsan waxaa stuudiyaha igula sugan nuurudiin shardi. nuur waxaad ka warantaa shirkani ka furmay muqdisho iyo weliba wafdigan heer caalamiga ee dowladda soomaaliya u dirta dalka burundi. waa mahadsantahay farxiisiya. shirkan oo muddo 3 beriyaha ka socon doona magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxaa diradda lagu saaraya arrimaha ku aadan wadatashi la xiriira arrimaha cadaaladda. shirkan waxaa soo qaban qaadisay wasaaradda cadaaladda waxaa ka qaybgelaya xubnaha kala duwan ee wasiirada cadaaladda ee dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale xubno ka socda beesha caalamka. shirkan waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo
uu ka mid yahay islamarkaana furitaanka shirkaasi uu ka mid ahaa abukaate maxamed khaliif faarax sadiiq xarago oo ah la taliyaha sare ee dhinaca